wafdigan uu hogaaminayay madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa waxaa qayb ka ahaa wasiir dowlaha madaxtooyada koonfur galbeed Ibraahim Aadan Cali Najax iyo gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed Cabduqaadir Shariif Sheekh Una Maye iyo xubno kale waxaana soo dhaweyn balaaran oo reer Baraawe u kala harin kadib loo galbiyay xarunta madaxtooyada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ee Baraawe halka oo kulamo balaaran kula qaatay waxgaradka iyo qaybaha kala gedisan ee magaalo xeebeedka Baraawe odayaasha ka hor hadlay madaxweynaha ayaa dalbaday in Baraawe la muujiyo in ay tahay caasimadda maamulka koonfur galbeed Soomaaliya magaalada Baraawe umada degan ku nooleed umadi deganeeday afar hadii loo dhigo saddex dhig ma jiro waxay uga tagtay saddexdaas dhig dhaqaale darray uga tagtay shaqo xumay uga tagtay muqmaalkii magaaladan waxa uu kala gooshay Kismaayo iyo Xamar ay kala shaqo gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Cabduqaadir Shariif Sheekh Una ayaa carabka ku adkeeyay in dhawaantan ay maamulka u soo rari doonaan Baraawe ugu diyaarsan kadib ayaa waxa ku xigta talaabada ee guuritaankeedii iyo degistiisa iyo ku dhaqanka gurigaas marka insha Allah waxaanu ku jirnaa marxalad diyaar garow loogu diyaar garoobay maahina saacad walba daqiiqad walba waa naga go'an tahay in waxa oo maamulka degmada Baraawe ee diyaar u noqoto in laga helo wax allaale wixii facility u baahan tahay xukuumaddu inay ku shaqeyso ama baarlamaanku ku shaqeeyo inaan u soo go'no runtii hadda February insha Allah waa bilow wanaagsan sida loo sheegay injineerada ay noo sheegeen aeroportku wuxuu bilaabi doonaa in diyaaradihii ay ku soo degi karaan dadku ay imaan karaan waa inoo bilow waay talaabo fiican waaye Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen madaxweynaha koonfur galbeed ayaa reer Baraawe ka codsaday inay la shaqeeyaan waxa uuna u ballan qaaday in Baraawe xaqeeda ay heli doonto maamulkiisana ay ahmiyad weyn ugu fadhiso magaalo xeebeedka Baraawe xaaladda ay ku sugan tahay Baraawe iyo sida ay u taalo annagoo fikir fiican ka qabnana aan la noqono yaanu nimid waxaan kaga mahad celinayaa soo dhaweyntii fiicneyd oo sharafta lahayd oo aadnan u kala harin saqiir iyo kabiir oday iyo ciroole dhalinyaro maamul kulligiina noo soo wada istaagteen waa ku mahadsantihiin waxaan soo marnay aeroboortka runtii shaqo fiicana ka socotay gebagabow ahaa wax yaraa harsanaa intaas hartayna waxaan jecelnahay sida ugu dhaqsaha badan in loo suubiyo qorshaha dawladdan aan madaxweynaha ka ahay aan horay u ballan qaaday waxay ahayd in uu ku shaqeeyo koonfur galbeed caasimadeeda ay timaado inta aan soo degno dowlad goboleedka xaruntii laga xukumayay oo ay ku shaqeynaysay ay Baraawe noqoto insha Allah safarka madaxweynaha ayaa noqonaya kii ugu horeeyay oo ku yimaado magaalada Baraawe tan iyo intii loo doortay madaxweynaha koonfur galbeed Cabdiwali Cali online TV-ga caalamiga ah ee Universal magaalo xeebeedka Baraawe